ciidanka hay'adda nabad sugidda ayaa fashiliyay shabakad ka tirsan Al-Shabaab oo doonaya inay weeraraan beerta nabadda ee magaalada Muqdisho sida ay shaacisay dowladda federaalka Soomaaliya. Bayaan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen jaakado ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxa oo la doonayay in la geliyo gudaha beerta nabadda iyo mooto bajaaj qayb ka ahayd qorshaha weerarka beerta nabadda. Howlgalkan ayaa sidoo kale waxaa lagu burburiyay shabakadda loo diyaariyay weerarkan oo ka koobnaa kooxdii qaraxyada waday iyo sidoo kale koox kale oo hubeysan oo qorshahoodu ahaa inay gudaha u galaan beerta nabadda. Dhaqdhaqaaqa shabakaddan oo diyaarinta weerarkan ayaa waxaa la sheegay in ay la socotay hay'adda NISA taas oo ugu dambeyntii keentay in sirdoonka qaranka uu maanta si xirfadeysan u fashiliyo weerarka ay Al-Shabaab ay ka damacsanayeen inay ku qaadaan beerta nabadda. Weerarka la fashiliyay ayay doonayeen Al-Shabaab in ay ku waxyeelayaan dadka Soomaaliyeed ee u soo nasasho taga goobtaasi kuna burburiyaan ganacsiga goobtaasi taasoo muujinaysa cadawtooyada ay u qabaan shacbiga Soomaaliyeed ayaa lagu yiri bayaankan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta. Dowladda ayaa waxay sheegtay in ay ka go'an tahay in ay sii laba jibaarto dadaalada lagu ciribtirayo Al-Shabaab iyo ficilkooda iyadoo ugu mahadcelisay shacbiga Soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ee u helan in ay ilaaliyaan nafta, maalka iyo sharafta dadka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalkan wasaaradda warfaafinta. Si kastaba ha noqotee ciidamada amniga caasimadda ayaa muddooyinkii dambe ku guuleystay in ay hoos u dhigaan falalka Al-Shabaab ay ka geysan jireen magaalada Muqdisho xilli uu guluf dagaal oo xooggan ay Al-Shabaab uga socdaan gobollada dalka Soomaaliya.